السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كبعي software alaabad ka barateen casharo kala duwan oo ku kala baxa shabakadan ka kala baxa. Casharkan wuxuu noqonayaa casharkeeni saddexaad ee barnaamijka loo yaqaano page 3 ama message 50. casharkan waxaanu ku baran doonaa si loo sameeyo qodobadan soo socda. casharkeeni koowaad waxaanu kaga hadalnay menu bar waa qaybta sare uu barnaamijku leeyahay. ka menu bar waxaa jirta qaybo muhiim ah oo ninka kala sheekeeyay qaybaha aad u isticmaali doono. qaybta waxaa ka mid ah qaybta loo yaqaano maintain menu aan ku arki doono barnaamijka. qaybtani maxay qabanay? waxyaalaha ugu muhiimsan ee qabanayso waa shantan qodob aan ku kala baran doono casharada kala duwan. casharkeena koowaad waxaan ku baran doonaa waxaan noqon doonaa chart of accounts. waa shan cashar oo isku xiga oo mawduucyo kala duwan isticmaali laakiin hal menu laga isticmaalayo. chart of account, inventory items, vendors, customers, employees. marka menudan waxay qabataa creating bay samaysaa waxbay abuurtaa. marka chart of accounts qaabka loo abuurayo baanu casharkan ku baran doonaa. marka casharkan waxaan ku baran doonaa how to create chart of account in your business. business kasta ama ganacsi kasta wuxuu leeyahay account. waxa garanay ninka account soo dhigtay ama labada participant soo dhigtay ayaa si fiican u garanaya. account marka akoonadu kala duwan yihiin. qaar baa hadda servicesku ku adeegyada qabta akoona gaaray leeyihiin, qaar kuwa merchandise ku akoona gaaray leeyihiin. ka akoonadaas oo la isku daray baa loo yaqaanaa chart of accounts. marka qaabkii loo abuuri lahaa chart of accounts baanu casharkan ku baran doonaa. dhinacayo barnaamijkii asxaabeena leexiya dhinacayo barnaamijkii markaanu soo furno barnaamijkii wuxuu nagu sheegay casharkii anagoo sharaxnay qaybahan uu ka leeyahay. menu bar waa qaybtan sare, waa intan sare koob iyo tobankan menu bar baa loo yaqaana menu. marka qaybtee taageerayna ama qaybtee baanu ka shaqaysiin doonaa. marka qaybtan maintain waa qaybtan maintain baanu ka shaqaysiin doonaa. qaybtan maxay samaysaa? waa inay kugu yidhi casharkii creative baysa waxbay abuurtaa. waxay abuuraysaa customerka oo qaybta laga diiwaan gelinayo, waa qaybta supplierska laga diiwaan gelinayo, qaybta shaqaalaha laga diiwaan gelinayo, waa qaybta chart of accounts laga diiwaan gelinayo, qaybta inventory waa waxba laga diiwaan gelinayo halkan. waa qaybta laga diiwaan gelinayo macna ashyaada. marka haddii aad iibin dhowr shaqaale ee aad shaqaaleysiisay halkan iska diiwaan gelinayo. marka anigu hadda casharkan muxuu qusayaa? casharkan wuxuu qusayaa chart of accounts qaabka loo abuurayo. chart of accounts qaabka loo abuurayo wuxuu yahay waxaad tagaysaa maintain kadib chart of accounts baad tagaysaa. waan ku dhifanaysaa kadib waad sugaysaa inta kusoo baxayo chart of accounts. shaashadan iska weynaysiiyo chart of accounts waka saasuu nagu soo baxay chart. marka maxaad samaynaysaa? chart of accounts waa saddex shay baa ugu muhiimsan. waa id account id-ga aad siinaysid iyo description-ka magacuu leeyahay iyo type-ka. saddexdaas haddaad fahantid aad buuxisid micnaa waad ka adag tahay chart of accounts. saddexda maxaan kula qoranaa? aanu soo furno pdf halkan noo yaala. pdf kan wuxuu noo sharaxayaa saddexdii shay aan ugu muhiimsanaa chart of accounts. chart of accounts-ku waa serial number buu leeyahay ama account id baa loo yaqaana. waa midka midna waa description-kii oo waa intana lagu qoraya. qaana waa account type-kii waa qaybtee buu gelaya. horta akoonada waxaan fahmaya nin account soo dhigta, nin kale horta ma fahmayo ku adkaan inuu fahmo, laakiin nin account soo dhigto baa aad u fahmaya. kadib saddexda shay baanu gelinaynaa. marka itemskan balance sheet-kana waxbaa gala, income statement-na waxaa gala. marka akoonadaas shantaa akoon marka waxaa loo yaqaanaa laba akoonada. horta laba loo kala qaybiyaa marka guud ahaan balance sheet accounts iyo income statement accounts waa loo kala qaybiyaa. marka shantii akoon oo tafatiran maca serial number-koodii ama account id-goodii leh halkan aan ku arki doono. waa intaasoo dhan baan diiwaangeliyana. qaabkeen u diiwaangeliyana? waxaan pdf kan qofkii iga soo codsada waxaan ugu diri doonaa, wuxuu soo dhigi doonaa xagga hoose description-ka hoose ama commentigu kasoo bixin doonaa. wuxuu isoo diri doonaa emailkiisa. kadib ana casharada iyagoo wada pdf oo organizer ayaa anaa u diraya. marka qof walba oo u baahan pdf kan wuxuu samayn doonaa commentiga casharkan ayuu kaga soo qori doonaa emailkiisa. marka anaa u diraya casharada. marka maxaa samayn doonaa? serial number-kan iisoo koobi garay. mid walba oo koobi garayana ma koobi gareeyey waxaan tegayaa programkii id-ga waxaan gelinayaa 110 waa maxay? 110 waa cash on hand. saasaan koobi garaysanayaa
ساسا بوحينيا إلا أكونادو دمانيا كانوا شاد تايب كيسونا waa cash oo adiga halka ku arka type kiisu waa cash ka mid kasta saas u bixinaysa kana saas u soo koobi garay ka qofkii haysta kan type of coins uu aad buu ugu fahmay ka kan markaa u dhamaysid waxa haysaa save and new ba taabane waa save gareysay save and new ma taabatay ka kale u soo soco waa 112 muxuu yahay waa regular check payment buu yahay inta ay koobi garay kadib saasaad ugu basti garanaysa halkan isagu qudhiis waxa malaynaya inuu cash yahay cash typekiisu waa cash marka saasaad u save garanaysaa samatri save and new ba daabanay hadaba ka saddexaad soo noqon inta hore marka inta aan ka gaarsiiyo wixii daamis ka saddexaad serial numberkiisu waa 113 kadib adaa gelinaya marka serial numberka adaa waxa doonaysid ka dhiganaysid laakiin waxa la sameeyaa qaab standard ayaa loo qoraa marka qaabkan waa qaab standard laakiin adaa ikhtiyaarka doonaysid u qoranaya ikhtiyaarku waa adiga laakiin qaabkan waa qaab standard account receivable waa account receivable daaqada ayada soo furaysa account receivable waa ka marka waa muhiim meesha ugu muhiimsan horta waa account type hadduu account type ka khaldamo oo ku dhamaatay save and new badaysa ساسد u diiwaan gelinay marka hadda casharkas ilaa aad ka dhameynaysid ilaa aad ka gaarsiinaysid xagga ugu hooseysa sasad diiwaan gelinay waa saddexda account baad soo qaaday kan copy garay ku paste garay kana copy garay description ku paste garay kana account type ka aad dooran doona kan click uma siinay kan lama copy garanayo waad ka eeganaysaa waad ka copy garanaysaa sida kan oo kale aan ku saalayo copy garay copy garay kadib halka ay geli account type ku paste garay kaas waa not payable not receivable ma filaya inuu yahay not receivable saa copy garay not receivable muxuu ka tirsan yahay account type macnaheedu waa nooca account-ka uu yahay waa loo yaqaan account type description ka cash uu default marka account receivable buu yahay ka save garay marka casharka waa boss baan siinayaa waana wada buuxinayaa kadib marka aad macnaheedu qaabkan baa loo buuxinaya marka casharkan ugu dheeraanaya boss baan siinaya adaa marka dhameystiri doona anu hadda waa dhameystiraya laakiin casharka way boss baan siinaya asxaabay markaan dhameeyay aan sidii u buuxiyay oo aan buuxiyay dhamaan ana horta soo diraya muxuu ahaa buuga ama PDF ka laga buuxinayo qofka waana sheegay emailkiisa buu commentiga soo dhigaya video kale ma soo dhigay videogan ma soo dhigaya kadib marka aad sidii u dhameystirtid halka list baad tagaysaa listkoodii baad helaysaa dhammaan akoonadii aan diiwaan geliyay akoonadii dhammaan aan diiwaan geliyay waa kuwan waa cash on hand ilaa miscellaneous expense marka akoonadu aan yiri waxa loo kala qaybiyaa balance account iyo cash statement marka intaas hadeer ilaa lagu joojinayo halkaas waa balance account halka laga bilaabay ilaa halkaasna waa income statement account qofka account ma kala garanaya marka qaabkaas loo diiwaan gelinayaa marka waa first step marka programka soo furtay wana chart of account-kaas diiwaan gashataa hadii kale systemkaagu si fiican kugu shaqeynayo marka asxaabi casharkeen intaas aan ku soo gabagabeeyay chart of accounts loo diiwaan gelinayay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.